yaan guursada say u egtahay gabadhan guursanayo wiilkan guursanayo see u egyahay maxaan ku xulanayaa maxaan ku dooranayaa xageen ka fiirinayaa sadaradeed qodobkeena koobaad waa maxay reeborame oo isku waafaqayno caawa marka guryaheena tagno dabcan rag way yar yihiin Soomaha dumarka aad u badan Soomaha waxaan doonayaa gabadh walba markaad hadda gurigaaga tagto dakhsiga aad ku aragto 6 bilood xariga guurku sidiisaba waa akbar mashruuc oo bini aadam galo warka ogaada akbar tijaara iyo akbar mashruuc iyo akbar muassasa oo adduunka laga dhiso waa muassasada ugu adag waa muassasada ugu xoog badan waa muassasada ugu qiimaha badan qofku hadii uu calamo badan taabto tijaara waaweyn iyo sharikad oo samaysto waa iska adduunyo laakiin mashruucan wuxuu soo saarayaa bashar intaajkiisu waa bini aadam waa wax hadii la suuq geeyo aan qiimo joogin ma bal la garanayo qiimo qof bini aadama computerka qiimihiisa waa la yaqaan miiskan qiimihiisa waa la yaqaan gurigan qiimihiisa waa la yaqaan diyaaradda qiimaheeda waa la yaqaan bini aadam qiimihiisa lama yaqaan idan warshada soo saaraysa bashar iyo bini aadam waa akbar wa a'zam mashruuc oo bini aadam u gala way horta inta meel ku gunta ma aha marka macnaheedu waan iska helayo waan isjeclaanayo heblaaya guursatay guursayo heblaaya hebel baa guursayo gabadha waan ka helayo wallahi wiilka waan ka helayo socodkeedaan ka helayo qosolkeedaan ka helayo waxa ma aha mashruucan waa mashruuc weyn oo in la fahmo u baahan horta sidaas horta waa inaan muqaddim ahaan u ogaano marka labaad sababta loo guursan hayo way mawduuceenu way la isu guursadaa asbaab badan baa la isu guursadaayo horta laba shay oo asaasi ah qabsada xifdul insaan wa xifdul ansab wa xifdul furuj saddexan ka dhigo ka koobaad waa maxay waa xifdul insaan insaanka la ilaalinaya insaanku see ku badanaya guur haduusan jirin see lagu tarmaya guur haduusan jirin haddii aabaheen aadam bas adduunku ku joogi lahaa oon hooyadeen xawaa la abuurin ma ayada caruur dhali lahayd idan qodobka koowaad waa maxay waa xifdul insaan insaanka jiritaankiisa wuxuu ku xiran yahay guurka labo waa xifdul ansaab nasabka inuu jiro oo qofku abtir yeesho meeshuu ka imaaday la yaqaano aabihii la garanayo xalaal iyo meher uu ku dhashay waxa weeyaan faj'alahu nasaban wa sihran nasab la doonaya ud'uuhum li'aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aabaa'ahum fa ikhwanukum fi ad-din ilmaha nasab la rabaa in lagu dhalo sida daraadeed xifdul furujna maxaanu yiri Allah wuxuu xarimay jalla jalaalu inuu nasabku isku darmado zinada maxaa loo xarimay zinada waxa loo xarimay in nasabka la ilaaliyo oo abtirka la ilaaliyo hooyadu ilmahan ay dhalayso aabahan dhalay waa in la yaqaano saddexda waa asal xifdul insaan wa xifdul ansab wa xifdul furuj inta wixii ka dambeeya mawduucaygan galaya oo koow ah ma taqaanaan guurka ujeedadiisu hada meesha waxa horteeda yaala culimada aragtay sawir qurux badan beer qurux badan iyo guri qurux badan iyo cagaar iyo geedo iyo diyaarad hawada maraysa inta uu imagine gare inta uu ka fikir bal macnaheedu waa maxay guurku asalkiisu waa as-sakinatu war-raaha bas marta inaad guursato faham ujeedadu waa as-sakan deganaan iyo raaxo iyo itmi'naan iyo xasilooni iyo amni مثلا حدوث امني جيرين halka ma ku kulmi lahayn horta lamaanaha isqabana hadayna amni ku wada joogin ma isqabi karaan oday cabsan hayo oo islahaya caaw markaas seexato islaamtu arbay ku mirtaa ma seexanga
gabar cabsanayso oo ruwaagi iyo libaaxi baa soo galaya soo saas maaha guriga ma nabad ba ma nabad maaha guurku asalkiisu waa nabad mahmaahda Soomaaliyeed qaamuuska in laga tirtiro anu waan qabaa nin iyo naag col ma aha nabadna ma aha yaa ku sheegay reerku waa nabad reerku waa barwaaqo reerku waa bashar reerku waa bini aadam wa isku dhacayaan waaba insaanba malaa'ig ma aha laakiin ujeedadii la isu guursadaa la qabaa guryaheena inteenaan caawa meesha fadhida aanu ballan qaadno inaan guryaheena cinwaanka ama magaca ama halku dhaga ama fahriska guryaheenu waa suuratu ruum aayada 21aad suuratu ruum aayada 21aad طلب أيضا من حشيسة شيخا سينا يا أخينا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا سلام شفتوا؟ هذا هو الدستور أسرة كستو مسلمة الدستور كذا وكا ما قرأتين سببت اللي سجور سدي ما قرأتين قريهنا وإن كدقنا جنة الدنيا جنة دم وينوض ميسا لكن وإن كدقنا جنة الدنيا ترى قريهنا سيء لغون كران آيات وجعل بينكم مودة ورحمة. ما الفرق بين المودة والرحمة؟ قال العلماء موضوعا تخصص وكل واحد مودده ومركز ليسكو في عنيه مودده ومركز قرق والنبذيه أو واحد بجري أو أضيق بنانك كإيمانيو أو مركز صوت اللابسان هيو وصوت اللابد سوب بسينيو أو إسلاهي حبيب تادي قرمات جاري دونتا وحب إسلاهي gabadhii ku qaabili jirtay ee albaabka kaaga hor imaan jirtay ee maxaa la yiraahdaa carafta badnayd goormay ka hor imaanaysa talaabadu soo boobsiinaya gabadhina halkan ba waxay leedahay Allah goormuu imaanaya saaxiibkaaga qiimaha badnaa taas bay raxmadu markii la isku fiican yahay waa mawadda ka war marka odaygu markuu imaado hadduu xabad shukulaato hadiya ku keeno maxaa dareemaysaa xabad shukulaato hadiya soo waa fiican ma ila gabadhi nafteedii oo dhan bay ayadana u diyaarisay halkaas way raxmadda leeyii mawadada leeyii sheegayo mawadadu waa labadan qof noloshooda quruxda badan ee ku dhisan deganaanta xasiloonida itmiinaanka is-ixtiraamka isqadarinta wada tashiga iska warqabka يعني اسكو سو دوانشاه قلبك اسكو سو دوانشاه جيركا اسكو سو دوانشاه مع مشاعرته iyo dareenka isku soo dhawaanshaha wada wax cunka iyo wax wada wadaaga isku soo dhawaanshaha amaanta iyo iska warqabka inta soo dhawaan mawadda ayna rahmadu xagee ku jirtaa inay hadii mawadda rahma isku macna laga dhigo القرآن كمان معناه ترينا ما رحمته وحي شقيسا مركي جرتو حنون مركي جرا ولول مركو جرا والبهار مركو جرا محل إلى ذا دباطو أما جوريا كركا كجت ما دام داخلك حاجة عرورته حاجة مالك حاجة نفطة حاجة قرابة حاجة إهلك حاجة درسك مسكين فقير مركز رحمته تمادا قف كلا إنه النحريستو حنون كيس الله قيبسده والكيس الله قيبسده والبهار كيس الله قيبسده هذا هو الرحمة صدر هذا القلب كأنكم أدوان محي ريبورمي أسكوا وافقينه عاو مركا قريه نتقنه طبعا رجوا يريه صماها دمرك آدم بدن صماها وحندون يا جبر والباي مركا حد قريه هذا تقطو دخسية أتكو أرت اللح بلوضو حرقة لح بلوضو حرقة وشر guriga inta gogash sa u kala duudo oo sariirtii sida ahayd asa u soo bedesho
oo adiguna iska dhigto maanta magaalada ila laba aroos baa ka jiray ila saddex aroos waxa la og laba aroos waa ka jiray maanta soo magaaladu waxaan ka rabnaa gabadha la aroosay ina iska soo qaada adiga ina tahay maxaad ugu fikiraysaa gabadha in la qurxiyay oo la habeeyay adiguna waa ina is qurxisaa soo ma insha Allah waxaan rajayn muhaadaradan inay wax badan naga bedesho gabdho wanaagsan baa jira gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho wanaagsan waa gabdho nadaafad badan waa gabdho dhaqan wanaagsan laakiin waxaan doonaynaa inaan sii dheerayno soo ma waa inaan guryaheena laga dareemo caawa oo kaliya si aniga lafteeda leegu soo duceeyo la yiraahdo wallahi wadaadkii khayr Allah odayaashana waxaan rajaynayaa markay arkaan gabadhii oo isbedeshay gaarinimadeeda cuntadeeda nadaafadeeda maalin dhaweedan jigjiga aan muhaadaro ka dhigay waxaan ku yiri waxa la sheekhow gabdhuhu way is cadeeyaan daaway marsadaan kadibna waxaan ku yiri ana hal tajruba insiine gabdhaha Soomaaliyeed oo qurqurux badan yihiin adoon kharash badan ba ku bixinin boorashka zabarta boorsoma boorashka guriga ku yaal caana yar ku dar kadibna wajiga iska marso hadduu wajigaagu noqon waayo wajiga ninkaagu uu ku weyrixi doono waxba ay weydiinin warka wasaas way taas horta waa mid weeye mid labaad oo ayadana aad ka muhiim ku ah waxa weeye waan sheegay asbaabaha la isku xiri doono waxa weeyaan noloshu ma aha oo kali ah waa la isguursaday oo kali ah ma aha noloshu waa mashruuc dheer haddaad caruur isu dhashaan ood kala tagtaan iyo haddaad wada joogtaan waa mashruuc cumrigaaga la soconaya waa la faham soo maaha wax yar oo xamaasada oo maalmo lagu kala tegaya ma aha waxaan u gudbayaa qodob muhiim ah oo cajiib ah oo haddaad arki lahaydeen asuuxi lahaydeen ma taqaana qofka waliya min mafatih at-tafahum bayna az-zawjayn furayaasha lamaanaha ay isku fahmaan meeqa furaan isticmaalayna si aanu isu fahamno yani waxa weeyaan furayaal badan baan u baahanahay nolosha adduunyada arkaysaan faqri baa yimaada adduunyada arkaysaan xanuun baa yimaada adduunyadan aad arkaysaan xoolo la'aan baa timaada adduunyadan khilaaf baa yimaada adduunyadu marka ma aha roog cagaaran oo mar walba lagu soconayo jannada laga helaa waa in warka la fahmaa dadka qaar ba waxay moodayaan adduunyadu inay wax yar markay yimaadaan ninkii waa igu xumaaday ninkii sidan buu noqday gabadha waa igu xumaatay maya fiir qof walaalka ah oo khaldan hadaad aragto maxaad samayn lahayd Soomaalida waanisin labadiina iswaaniya horta labadiina maxay isu tiin yaa yaqaan waxa isu tiin walaal baatiin walaal sidee innamal mu'minuuna soo ay quraana labadiina idin kuma socoto laba qof oo walaala maxaa laga rabay maxaa ixtiraama maxaa qadarina maxaa isudul maxaa waana midda la iska rabo waa midda marka yaan la moodin markaan qoyska wanaagsan ka sheekaynayno dad malaa'iga anu kama sheekaynayo dad malaa'iga kama sheekaynayo dadku way isku dhacaan laakiin Soomaali hore wuxuu tiri gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa maamada ma taqaanaa adiga zawjkaaga si toos hoose oo wada hadli doona biidilaahi tabaaraka wa taala waxa nagu caawinaya ma taqaanaan awwal shay labada qof furayaasha ugu muhiimsan oo isticmaalayaan ma taqaanaan awwal fure oo ay isticmaalayaan waa inay marka hore wada wax meel u wada yaalo maxaad ku heshiiseen labadiina horta maxay heshiisiina waa inuu jiro heshiis aad horay ooga wada hadasheen adduunka shay ma jiro marka lagu heshiiyo la isku waafaqo ayaa wax laga dhigi karaa labadiina maxaad ku heshiiseen hal tusaale siiyo oo aad garanaysaan oo in badan lama maqasheen culimada aad ka maqasheen oo muhaadaraad ka maqasheen ma isweydiiseen adiga iyo zawjkaaga intaad fariisateen waniyo waxaad isiisaa ilaa 10 qodob oo waxaad jeceshay oo ku sameeyaa ma dhibeelada maxaad jeceshay oo ku sameeyaa qorisi inaanu ma awoodi karo uur ku baalami leeyma waxyoonayo qof caadi oo bashara tahay horta 10 qodob ala aqal isi oo
aad jeceshahay aye hadda dan microphone idin dhiibo oo aan dhaho bal waxaad sheegtaa 10 qof 10 qodob oo jeceshahay adi in lagula dhaqmo waan ogahay inaad sheegi lahaydeen war soo saas run ma maxaad nimankii noogu sheegi lahaydeen marka hadda waa runtii odaygaaga u sheeg wiilasha waxaan ogahay haddii la yidhaahdo waxaad sheegtaa 10 qodob oo jeclaan lahayd xaaskaagu inay kuu samayso 100 buu sheekhu tirin lahaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu weligii ju u dhihin haddana cadhaysan yahay muxuu cadhaysan yahay wuxuu cadhaysan yahay wax aan la jeclayn buu samaynayaa soo ma wuxuusan jeclaysanin buu samaynaya muxuu yahay marka waxa la doonay la isku xiro in la isu sheego مثلا نيكي وحوكي والله أنا ما تشعلي رجع طبيعة هذا قيف كم ذكر يا والله أنا ما تشعلي أنا وشاقة كإيمد إن أنكو صقرا هذا التليفون لك تهست صار الرجل بتشعشي هذا الشاقة كإيمد سانت هذا حظ يسون نولة ما تشعش شيخ هذا فيريا موجودا ما تشعل الرجل ما تشعل لكن وحلقة يا إنه سووا شيء سلا درادة عنان يعرو مركل الأردن ده كان qiiq wax la yiraahdo baa dadka isku dira marka waxa la isu sheegin weey soo saas ba gabadha waxa laga yaabaa inay necab tahay ninkeeda inuu soo daaho soo ma inuu soo daaho soo ma necbidina waaye ragiina marka ninkaaga goormaad u sheegtaa waxaad u sheegtaa markuu soo daaho ma dhada meeqa jeer baan ku naga soo daahay waanu kugu daalay caawo dhan baan waan seexan lahaa furan ma wadeed haduu doono طيب ما أشرتي أو ما لفريستي أديكو في عن ولالو حبيبي ما دي كرتا أوكي وأن كحوم هاي أنا قد طبيعة إذا وحنا هاي النوع عن شعلين إلا قصوته نكم حسمين لا مرك وحسمين لا مرك وصوته يوكل صهاد لها وحولي لا قبل ذي عوارته سجرته صادرات الوقت ياسر كو إيمان لا صع رالنا أهو ورصاص ما fiir hada labada tusaale hada aanu ka bixinay kaliya reeraha intaas isku diray laysumana sheegin waa waxa jeceshahay iyo waxa nacabtaa ninba waxa laga yaabaa inuu jecel yahay raashin muayyana wasaas ma raashin muayyana nimanku wada taqaanaan oo caloosha loo buuxiyaa wad qaar sama nimanka caloosha loo buuxiyaa weligiin hada doonaysaa ninkaagu inuu ku jeclaado caloosha loo buuxiyo wasaas ma taa wada ogtiin Soomaha waxa laga yaabaa laakiin inuu jecel yahay cunto muayyana Sooma waxa la rabaa asagu inuu sheegto oo anigu waxaana waan jeclahay inuu soo ku sheeganin baa laga yaabaa kadib intuu xagga tagay inuu dhaho iyo islaam waxaan qabaa maalin walba bariis baasto dalaabilash kadibna ninka banaanka joogo uu dhaho markaasi aniga bismillaah aniga iska sabar hadii walaalo maxaan ku sameeyaa ilaahay baa kugu aadi wallahu ta'athina sama laakiin xaqii arintu ka jirta inuu sheegay oo anigu sida iyo sidaas baan jeclaa maalinta dambu gabar dariska u tagaya reer dariska saaxiibka oo dariska u tagaya alaab la yaab loo ka soo cunaya kadibna wuxuu leeyahay wallahi dad ogaal lahayd maanta waxaan soo cunay arintaasi marka gabadha rabaaxi ku tahay Soomaa marka waxa la rabaa in la sheekaysta la rabaa marka nimanka iyo gabdhaha iyo wiilashu qodobka koobaad oo mafaatiixda tafaahum kana ka hadlay Soomaa min mafaatiix التفاهم بين الزوجين waxa kamida war waxaan jeclahay baan ku sheegi anna waxa jeceshay ii sheeg waxaad nacabtahay baan ku sheegi war adna waxaad nacabtahay ii sheeg odayaasha waxaan ka codsanayaa meesha fadhiya ninkan hore caawasa u sameeynin islaantiisu markay caruurta seexdaan inuu ku dhaho caawa sheekan leena caruurta naga seexdeen waa ninka hore u sameeynin ma kala Soomaa ma ceeb ku tahay ma ceeb kuma kadibna aad dhahdo wallahi maanta muxaadaraadkan ka soo faa'iideystay hadda ka hor wax badan oo adiga aan isla fahmi waayay jirnay oo reerkuba naga dubi gaaray ayaan soo ogaaday iga qor warqadan iga qor waxaan jecelahay dhanba ku sheegaya karaan necbahay adiguna isii reerkaasi madagaya sakiina iyo xasilooni ma helaya haamay waayahay qodobka labaad waxa weeye qabsada qodobka waa ka soo tagay hadda qodobka labaad qabsada oo furayaasha
reerku inay isfahmaana athiqa kelimada waa mid naga maqan athiqa wa inay jirto kalsooni haduusan ninku xaaskiisa ku kalsoonayn akhlaaqdeeda sharafteeda diinteeda iimaankeeda gobasheeda cuntadeeda dadnimadeeda tarbiyadeeda haduusan intaa ku kalsoonayn ma idinla tahay inay meeshaasi reerkaasi inuu isfahmi karo ma idinla tahay gabadhu haddayna ku kalsoonayn zawjkeeda dadnimadiisa raganimadiisa suu reerkiisa u biisho tarbiyada qaabka siduu dhibaatooyinka waxa haddayna ku kalsoonaynoo ayba aaminsan tahay ay leedahay ilaahay baa kan gacanta kuu geliyey ilaahay baa lugta kuu geliyey 5 caruur xageen geyni ay arrintu taaganta muhiimadda weyn marka waxa weeye waa in la isku kalsoonaado labada qof kalsoonina waa wax la abuuray ogaada kalsoonidu hadiye iska timaada ma aha kalsoonida iyo fiqadu waa wax la abuuro waa wax la talaalo waa wax la beero waa wax biyo lagu shubo waa wax la koolkooliyo waa wax la qurxiyo waa wax la carfiyo waa wax laga warqabo waa wax la waardiyeeyo tusaale beer hadaad leedahay beertii marka aad abuurto maxay u baahan tahay beerta yaa soo fadha soo xayawaan la soo baxa ma jiro beertu markay dheelin noqoto inta la ekaato soo ila ilaaliyo uma baahno waa ood adag baa lagu sameeyaa lo'da cunaysa xayawaan kala cunaya way dheerato sabuul bay yeelatay soo hadana in la ilaaliyo ma aha shimbirti baa laga ilaalinaya tuug baa laga ilaalinaya xoolo inay galaan baa laga ilaalinaya war soo saasma beerta ila aad ka goosato waxaad ku jirtay abuur ay godka ku jirtay ay soo baxday dheeli ka soo gaadho ila ay mataqaana masagadi dhaliso ila aad ka goosato jacaylku waa intaas jacaylku beer ku tusaaleeya jacaylku in la waardeeyo u baahan yahay jacaylka in la waraabiyo u baahan yahay jacaylku cadow badan buu leeyahay in laga oodo u baahan yahay jacaylku fiiri meeqa biyo adduunka laga isticmaalaa biyaha tuubada biyaha cirka biyaha badda biyaha ceelasha weliga ma maqashay biyaha jacaylka hada xaqiiqo waa sax biyo waxa jir la yiraahdo maa'ul hub war ma maqashay idinka la yiraahdo waa inuu bari idinka maa'ul hub baa jira biyaha jacaylka maxaa kamida afiqa kalsoonida kamida in la abuuro waxa rajaynayaa lamaana kasto imaqli doona in ay qodobkaas soo nooleeyaan oo ay kalsoonidii dib u soo celiyaan oo gabadhu indhaheedu uu ninka ku weynaado oo gabadhu wiilku ama ninku indhihiisu ay gabadha ku weynaadaan oo ninku u arko hal tusaale siinaya مثلا odaygii baa soo galay gurigu soo galay waaba duhurkii weeye qadadii buu ka yimid wuxuu ka yimid shaqadii uu weysaystayba wuxuu tukaday 2 ragcadood islaamtu kuma ayna aqoon jirin ninku inuu saacada 2 ragcadood tukado way weydiisay waxay tiri saacadan 2 inayso maxay yihiin markaasuu wuxuu yiri markaan ku eegay oo ku fiiriyay quruxdaada iyo sharaftaada iyo caruurtaad ii dhashay quruxdooda iyo gaarinimadaada ayaa nicmadaas ilaahay shukri aan ku shukrinaya daraadeed baa 2 ragcadood tukaday ايش رايك يا شباب waxaad ii sheegtaan gabadha aad inta ku dhahdo maxay dareemaysaa yaa ii sheegi kara ya gabadhi ka dhig hadana arintana gabadhi ka dhig ninkii bay ku yiri maxaad u tukanaysaa ilaahayga igu ka arzuqay ya inta nin adduunka badan alla ilaahay jecela inuu ilaahay jecelay waxaan ku gartay inta nin booraba joogta ya adiga uu ilaahay ka xul alla ilaahay jecela ma ila tahay ninka muxuu sameeynaya soo sidii barafka uma dhalaalayo inta reeraheena
naga xigta waa inta macnaheedu waa maxay fiqa iyo kalsooni tusaale kala qabsada odaygii baan haddana tusaale ku soo qabanayaa shaqadu tagay maanta markuu meelaha joogo oo kaasii maqan yahay 2 saac oo kaasii maqan yahay yo halow soo yiri oo soo wacay ha habibi salaam alaykum wa alaykum salaam haye maxaad maanta jira wallahi waxaan doonayaa maanta inaan shaqada ka soo tago oo maxaa dhacay mid xanuunsan tahay ma yaada ku xiisa erayo waxa hubaala intaas iga tijaabiya waxa hubaala inaad guriga aad ku soo noqon oo ugu soo noqon qofkaad ka tagtay qof aan ahayn gurigaad ka tagtay guri aan ahayn cuntadaad shalay cuntay cunto aan ahayn xabada way ka diyaar galoobayaan xabada kale noo qarin maya adu furaadi siiyay sheekh wuxuu yiri inta hadan hal maalin ku dhaw maalinta dambe maya adu طريقه kala isticmaalaysa laakiin hal furu baan ku siinaya taa kali ama wal aaqilu yafamu bil ish wa tusaalihi weey sida daraadeed tusaalooyinku wax badan bay faa'iideeyaan odaygii baa soo galay oo aad u daalan oo maanta soo shaqeynayay Soomaa gabadhidu u yimid oo aad u daalan oo maanta caruurtii daba ordaysay oo qada u kari oo u qabe oo quraanki u dir oo ka soo qaad oo dharkooda diyaari oo hadana odaygii si cuntadiisa diyaari oo dharkiisa diyaari ya laba daalan baa isu yimid warsaas ma waxa laga yaabaa gabadha inay leedahay wallahi gabadh dariskeeda u wareegaysa mugti abaayay aniga wallahi ninku ku rafaasanaho waxba iima qabto shaqadaas oo ka imaada wuu seexda saas ma maxaa keenaya laba daalka waa in la iskaga garaaba ka war haduu odayga markuu soo galo ay ku dhahdo gabadhii soo dhawow annaga noo soo shaqeynaysi maanta dhan qorraxdaad aragtay adiga ay kugu dhacday ilaahay ha noo ka daayo kabaha musqusha lagu galo ay xagga u sii jeedisa musqusha soo sii gashado shukumaanka u sii dhigto intuu soo iisoo qabayso cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa oo cusbadu ku yarta inana waxa moogta waxad walwalaaqday ma aha samaa cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa marka u soo dhigto kadibna aad dhahdo war baan ku hayaa aye maanta ana ku cazuumay waan ku cazuumay waliga adu ma cazuumtay ninkaaga waliga ma cazuumtay samaa saasa la rabaa wallahi gabdhaha fariidin way wiilasha weydiinaya idinku waliga gabdhiina ma cazuumteen ma tiri maanta ana ii cazuuman tahay samaa hada iskiga dadaala saas ma saas weeye marka anaad maanta ii cazuuman tahay sida daraadeed gabar baa ninkeedii bay qiso yar baa idin sheegaya halka ku saabsan gabar baa isoo wacday waxay igu tiri sheekhow ninkii baan kala taaganahay maxaad igula talin lahayd anna waan jeclahay igu tiri laakiin ninkii xoogaa waxaad moodaa maalmahan siduu iga sii jeedaa waxaan ku yiri waxaad yeeshaa qolka chiefka waxaad yeelaysaa waxaad ka dhigtaa horta aroos run ah oo haduu noqdo gogosha alaabta lagu dadaadiyo waa taqaan Soomaa gogosha alaabta lagu dadaadiyo barfuuno hor le adigu guriga horta waxaad ka dhigtaa guri aroos oo nalkan cad ka bedel baani nal cad ma ku rakibnaa horta nalka cad ka bedel nal cagaaran horta wanaad ku xidhaa ninka markii la daaro uu guriga isbedelayo war wala faham Soomaa kadibna cunto cajiiba u samee adiguna labiso qolka chiefkan ayuu sagelin markuu imaaday qolka yar maanta dharka iskaga bedelay qolka chiefka u xayisi waxda ma qolka markuu dhamaa maanta qolka dhacay ku dhacay qolkii markuu galay wuxuu arkay qolkii oo la yaab leh carafta iyo quruxda iyo wixii la kala bedelay ninkii nimanku waa gabdho nimanku waa masaakiin runta idin sheegaya ninkaad inta ku samaysaan waa sixirteen waxa as-sihr al-halal ma maqasheen nimanku waa markiiba ninkii gabadhi hab Allah ma waxan maanad ii samays oo waxan maana iskale oo gurigan quruxda badan maana iskale oy gaadhoday marka waxa la rabaa noloshu waa sir
waxyaabaha fiqada iyo kalsoonidu ay ku imaanayso waa muhiim qodobkaasi muxuu ahaa hadda u dambeeyay muxuu ahaa kalsooni Soomaaliyeed wa inaan guryaheena wa inaan kalsooni ka shaqeyna bi idin tabaaraka wa taala waxaan rabaa inaan idin sheego kalsoonida aanu soo sheegnay waxay leedahay thimar iyo midho laga gurto yaa guranaya caruurteena kalsoonida lamaanaha thimar bay leedahay midhay leedahay natiijay leedahay natiijada waxay ka muuqanaysaa wajiyada caruurteena farxadda caruurteena kalsoonida caruurteena ay ka muuqanaysaa si fiican u dhageysta tan cagsigeeda way imaan doontaayo haddii mar guriga buuq iyo qayle iyo sawaxan ka jiro caruurtu nooc kale marka u ekaanayaan taas marka waa qodob dhaxtaar insha Allah tabaaraka wa taala hadaa la yiraahdo qodob kale fiiriya تشابه الأفكار والقيم والعادات إلى حد ما بمعنى ما حلقة وضع لبدا قفة لمانها مدام لبا مسكح أو كلا الدول إليهين لبا قيسنا أي قصة كلا كورين لبا عادو يتنقلنا خاص أنا أي كلا ليهين انت أوذا ولا اسكسو دوي مؤكتي خير فربلا وحاكلا جية محي اسم فهمين نك ما فهمتوا نك اسم فهمين قبلنا اسم فهمين ولا فهمتوا مركز هيري قفك وقف بني آدم سوماها ها وقف بني آدم أفكار بوليه أدوكنا أفكار بالله قيم خاص أبا الله هاي لابو عادات يقاب نقنات كسوكر هل غيابا ننكو إنو كسوكري قري بدخ إيو برواقة إيو gabadha waxa laga yaabaa inay faqri ku soo kortay saasaba aksi ka dhigo gabadhi ba waxay ku soo kortay maxay barwaaqo iyo xoolo iyo aabaheed iyo waalidkeed waxa weeyaan ninkana wuxuu ku soo koray faqri buu ku soo koray labadiiba caraf la isku daray labo tusaale kale gabadhi waa gabadh doctora waa PhD wiilkina waa an alif maxaa la yiraahdaa hal jiri tusaale oo kale إبر ما أنا في بيت مرة لا يكتب ولا يقرأ لبضع قف مكان الدوين مش مكان الدوينه أوكي قبلني واتضمي توينشر أضيجنا وكونتنشر مكان الدوين مش ما بيبدنا أما قبلنا كونتنجيا قبلنا كونتنشر ويلكون واسدي توينشر ويا ما أقول مقطع قبلنا عاس كي كلا ويا أقول هي لكن ما أقوله وحيدا كديدين haweenaydu markay 40 gaadho ila 50 sano waa marka ugu qiimo badan nolol warka ogaada hoos hayso dhigana nimanka meel dhaweeyda waan la soo dardaar goday baan la soo dardaarmay jijigan la soo dardaarmay waxaan ku yiri war gabdhaha markay 40 joogaan bayba noloshu ka u noqotay markay 40 jiraan oo islaanta aad ka dhaqaaqaysaan gabadh yar oo 7 jir aadaysaan war dulmiga iska daaya buur ama cadl u sameeya ama cadaalad u sameeya cadl u sameeya هذيك الآخرة ضد عصعة إيمانسا هذيك الماما آخرة ضد عصعة إيمانسا عدالة بالجاربة كنت تجرا ديتاي نبي أوبانت صبا كنت تجرا دي أوبانت وهل بي أوبانت كنت تجرا ديتاي رقم بي أوبانت ورثاص ما مركا كنت بيجادي يا أفرتم بيجادي قبل يربى بورسل أجدني وين كتجي آخرة حقيقة آدي وربنا في مركا تعرق يسيقون أبو صوت على صوت وياهي dadkii fawaariq baa jira marka dadku way kala duwan yihiin afkaartooda kala duwan gabar baa waxay leedahay sheekhow ninkayga ma tukaday maxaan sameeyaa samartan sheekhow ninkayga marmar buu tukadaa salaada ku karle maxaan sameeyaa fawaariqda noocana oo mar aqeedo noqonays mar akhlaaq noqonays oo ninkii ma taqana mukhadiraad buu isticmaalayaa ninka gabadha waa gabadh caabidada oo taqiyada oo muhajjabada oo qiimo badan ninkana mukhadiraad buu isticmaalayaa way kala duwan yihiin fawaariq farabadan baa jira arrinkaasi hadduu dhaco waxa loo baahan yahay in la isku soo dhaweeyo inta awooda Soomaa reerku inuu iska duma maaha laakiin waa in la isku soo dhaweeyo wixii caadada iyo taqaan hal qisa idin sheegaya xagga ku saabsan caadaadka dhaqamada kala duwan ninba wuxuu igu yiri saaxiibo aan nahay garbaan galay maalin dhaweey
wiil Soomaaliyeed iyo gabadh China indha yar gartood baan galay meeshuna waa China la socdaa waxa lagu yiri wiiliyo kaale gartan gal markaan reerkii wareysanay gabadhii waxay tiri ninkii bay ka dacwoonaysaa waxay leedahay ninkani aniga hooyo Kirishtaan ay dhashay way ii diiday nin madow oo Afrika ka yimid iska daabay ugu tiri waan diiday markii dambe waa iska guursaday way islaamtay markaa garta hadda way islaamtay kadibna hooyadii baa nacasuutay hooyadii waxay samaysay qof la casuumo wixii loo samayn lahaa China wixii masas ahaa iyo wixii dabaqallooc ahaa iyo wixii dixiri ahaa yaa la isu keenay ilaa waaba casuumaada adduunka qofka la casuumo ugu dambeeyo ninkii markuu soo arkay musqushu ku carrimatay isla gabadhi marka waxay tiri ninkan laga furo hooyaday cuntaday karisay oo kharashku kaga baxay ninka maanta ka bantagay xaraam bigi bal idinku gartaa naqa waa yahay waa nin Soomaali iyo gabadh indha yara sida daraadeed sodohdu inay sodohda fahmaysaa fiican Sooma sodogu inuu sodoga fahmaa fiican Sooma dad canjeera ku qureecda ya iyo dad masas ku qureecada isku mid ma aha marka caadaadku marka qaarkood waxay leeyihiin khatarteeda ay leeyihiin hala la socdo insha Allah tabaaraka wa taala hadii la yiraahdo asaliib al-infaq as-salim waxyaabaha reerka isku soo jiida waxa kamida noloshu inay toosan tahay anu kama hadlayo qofku wuxuu san awoodi karin oo bixiyo oo quraanka baa liyunfiq ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله تاكما الله يو أودا لكن وإننا ماشي جرين بخيل لما وإننا جرين رجع أنت بصوت الله صدق وإننا بخيل لما جرين ننكو حاستي سوحوا إلهي سي وإنه واسعي ورصاصات ما هدي أي دعي ويدو ننكو أو هايستا وحو ريركن كنا فقين لها أو ريركو كحرقون لها أو ريركو وحكو بران لها haddii uu ka baqaylo furihi ma hagaagaya ya furihi ma hagaagayo sadaradeed waxa loo baahan yahay laba qodob baan maanta u baahanahay odaygu inuu gacantiisa furo war gabdhow nin baqiila ma rabtaan idinku adduunka waxaad ugu nicibtiin waa nin baqiila Soomaa laakiin qaar badan oo idin kamidna xoolaha waa iska daadaadiyaan saas baa waa in ragga waxay keenaan guriga waa in loo tashiilaa gabadha waa inay dhihi karto xabiibi bishan waan haysanaa biilki oo maxaa dhacay saddexdii bilood ee la soo dhaafay biilki aadna siisay ayaan yaryareeyay sadaradeed bishan waxa weeyaan masaajidada iyo qaraabada yaan u dirno gabadha isma jira ma jirto Soomaa la gabadhu waa inay reerka u tashiisho nolosha haddaan labada laga tacaawunin marka miya la adilmisana mooyee okay haddaan marka labada laga tacaawunin furaha waa halaabaya marka furaha waa halaabaya bimaana haddii ninkii uu baqiil noqdo kalsoonidii ma soconayso haddii gabadhu ay noqoto ya gabdhaha qaar baa kulligood ma wada la socya maxaa la yiraahdaa at-ta'miimu dhulm bay jireen waxba lama wada camime waxa weeyaan qaar baad u joogna dhahaya may odaygayga waa inaan lacagta ka dhameeyaa suusanaa kale u gursan waa inaan lugta ka jaraa taasi waa yar xaasidii ku jira Soomaa lama fiicna saas laakiin waxaad yeelaysaa caruurtaada u dane zawjkaaga u dane noloshu waxay noqon ma taqaanid ninkan caawa hadduu lixdiisa lixaad qabo maanta maxaa soo aasmay gabadh ay bajaaj ku dhacay Soomaa hatta soo aasnay gabadh sidii noo kala soo kacday oo shaqaysanaysay yaa bajaaj ku dhuftay halka waxaan rabaa inaan risaalo oga diro maamulka iyo maayarka magaalada Boorame culumada iyo ducaada magaalada Boorame ogaasiyada iyo garaadiyada magaalada Boorame haweenka iyo waxgaradka magaalada Boorame bajaajlayda waa in go'aan laga gaaro siday u wadaan bajaajka waa in xad loo yeelo oo la yiraahdo qofka la arko bajaajka asagoo si
wada maanta anaga qubuuraha joogna culimadu way joogeen anaga qubuuraha joogno qabrigi dul taagan ayaa ugu yaraan laba bajaaj waxaad moodaysay inuu shaytaan ma taqaanaa soo riixo gow ilaa aan khalaas way rogmanayaan waan u tagnay waan waaninay caruurta aan dhasheen ee bajaajka wada la hadla wala fahamsama khatar way naf bay dilayaan ayagana way isalaagayaan intaasay kuma jirin muhaadarada laakiin waa mulaaxadada aan magaalada ku arkay weey oo aad waajib igu leedihiin in aan idin sheego arintaas waa mulaaxada muhiim jiddan guriga laba ku dhismaa marka oday gacan furan wuxuu awoodo muxuu kala ku dhismaa iyo hooyo wax tashiisha ma ku celiyaa ma la fahmo labadaas buu guri ku dhismi karaa nimanku ku celi bay leeyihiin waa warka u bogeen baan maray way jeclaadeen markaasi marka waxa weeyaan oday gacan furan oo bakhayl ahayn oo wuxuu awoodo aan ka bakhaynin reerkiisa iyo hooyo duruufta reerka ilaalis oo wax tashiisha oo aan wax ku ciyaarin oo xoomatana cuntadii aan bacmado lagu shubin oo aan banaanka la geeynin maanta cunto badan baa la daadiya warsadad ma hooyooyina waa arintaas mas'uuliyadda idinka iskale bidillahi tabaaraka ta'ala mawduuc muhiim aan ka hadli lahaa oo furayaasha ah laakiin dhalinyara meesha joogta mushkilada jirta waxa weeye mawduuca ma sharxi karo haday ahaan lahaayeen odayaal iyo hooyooyin haday ahaan lahaayeen waan ku tigtigsan lahaa waana mawduuc muhiim jiddan ma sheega mise iska daaya الله جوجا أربعة كلا يعلن ماشى ابن قيم سيدو وقش كينا أهل الجنة أيوم مركو سوق جاري ميلا خطر وحيلي وريان خير لهين حكبح المساجد كبير ولا ذا سماها مركب موضوع عشان الله يجيب أولي إن شاء الله طيب موضوع عسوا مهم جدا لكن وكهما فرياشة لقلبك لسوق كسبنكره وحكمده الاحترام المتبادل والله وقضب قريهنا كم خن إن بدنوا كمده ومحي الاحترام المتبادل يعني قدر يقيمين لبدا دينعه سيداد قيمين يسان كو قيمين يا قيمه صور في عما هذيك هي منك هاجي بس خلافي ويلك إياه لينك يحاس كسي بس خلافي وقضب مهم جدا أفحمد وين ماشي كبحضة سوس ما لبا إسقبت مسعي كران أعوذ بالله أنا كمان في لينا يتايبوا حتى عافيمات شرنا نواركا لبا قف أو إسقبت مسعي كران إسقفلجادي كران لكن وحانو أرجني أرمقلي لبا أنت إسكو حناغضي أنت لبا ضودي عيدي كجذبتي وجذبتي والد كده لي غير كمر غير صحابة عيدة هلا إلاليو عرب كان هلا إلاليو عرضنا هلا يريو عرض ما تقانن عرض بدن عيدنا ويكون دكتا يا عيد بيكون ديك مركوبات غير كده بيكاد دمي سما غير كده بيكاد دمي نيسا غير كده نائب وحي هل مربو ماشكا بحيا وحنو بأن مركنا احترامنا إن نسقدرينه حاجة هذلك هي حاجة فعلك انت وإنه احترام حتى في حال وجود الخلاف حتى هذا الخلاف سنة هاي وإن نس احترامنا لكن ماش أوجب بدن ولا يسكو احترامه يا ده ثقافة أرن أباهن ويوحن صوته وأرن ثقافة دير أباهن أو أباهن غير مجال لما دير أباهن أو يرام بقول سنو إن غير مجال هين أباهن لكن هذا أنجيل شرو ولي النهي أو ولي الله أي ما تغنى هالك المريسو أو ولي باديل وحريه أو أقل كي إسكيريه أو ظروفته إسكيرتهاي أو توعيته إسكيرتهاي أو وحي وناكسنا عيب لو أركيو وحبا أدلو قبل فهمي كرام وحن صوة توام تغنى قل كفردك مركان شوقنو وأنسكو حناق سرانو دب ماله حناق ودعي كرسوه كذا مركان شوقنو أنسكو حناق سرانو دب ماله صوه قولك عرورته مركان هجاتشين أسكو حناق سرانو واصح ومعقول لكن قولك النبضة مركان قال له
xanaaqu waxaan leenahay albaabku ku haray soma albaabku haraya maxay la mar hadii qolkii nabadda iyo qolkii jiifka uu xanaaqu tago arintu way adag tahay lama seexan karo soma adiga zawjkaagu ay suxana sama seexan kartaan ma seexan kartid ba hurdadu raaxa ma soma marka qolka nabadda waa in la ilaaliyo insha Allah tabaaraka wa taala abu soo gabagabeynaa insha Allah taala daliilado qodobka la yiraahdo xiwaarka qodob badan ba ay haray waqtiga goobay laakiin xiwaarka labada qof waa inay wada hadlaan laakiin iyo ogolaada meesha lagu wada hadlayo iyo goorta la wada hadlayo iyo qaabka loo wada hadlayo ku soo gabagabeeyo marka adiga zawjaaga isku xanaaqdaan ha isla hadlina hana wada hadlina asagoo gaajaysan may asagoo daalan waqti kulul waqti qabow taasi waxa weeyaan waa dhinac sidee iyo qaabka iyo goobtee waligiin qolka chiefka ku wada hadlina dad baa markay qolka chiefka tagaan markaa maxkamaddu furantaa dad baa markay chiefka tagaan bay maxkamaddu furmaysaa horta maxaa ay tirshalay qolka chiefku markuu inuu ka xiran yahay qolka fadhiga caruurtuna ay markaa ka maqan yihiin hatta makulaal guriga hadii joogto way laga saaraa labadiina wada hadli ama qaabkan ku gabagabeynaya qaabka ugu fiican ee loo hadlo idinka lisinaya jawaabtad ka bixisaan oo kali abaan qaadanaya in badan baan kula hadlay waan ku waaniyay waad madax adag tahay waxba ma maqashid anigu sidan kuulaba noolaanayo sida daraadeed go'aan baa gaaraya taas waa mid labaadna waa maxay xabiibti markaan fiiriyo qiimaha aad iiga joogto iyo sharafta aad leedahay iyo sidaan dumarkaaga doortay iyo caruurtan qurqurux badan ii dhashay markaan fiiriyo hooyada iyo aabaha iyo sidaan u jecelahay sidii noo jecel yihiin hadalkii aad igu tiri anu kuma quureen labada keen dhahnaa ma hubtaan wabillahi tawfiiq